بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan ugu talagalnay inaan isku xusuusino sidaan bisha ramadaan ee barakaysan aan uga faa'iidaysan lahayn. xalqadan ka horeysay waxaan si kooban uga hadalnay fadliga 10 maalmood ee u dambeeya bisha ramadaan, oo aan soo tilmaanay 10kaasi inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam dadaal dheeraada uu la imaan jiray xagga cibaadada, oo uu maaragtay laba jibaari jiray intii hore uu cibaadaysan jiray in ka badan, hadday tahay salaad, qur-aan akhris, yacni duco iyo sadaqo iyo wax walbaba inuu aad iyo aad u laba jibaari jiray. sababkuna waxaan tilmaanay in habeenkaasi la filayo, yacni 10kaa habeen in la filayo inay ka mid tahay habeenkii khayrka badnaa ee 1000 bilood ka fadliga badnaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkaas walaalayaal qur-aanka ayuu soo dejiyey, siduu qur-aankiisaba uu ku yidhi innaa anzalnaahu fii laylati alqadr, yacni waxa weeyaan qur-aankan waxaan soo dejinay habeen sharaf leh oo maamuus leh oo ramadaan habeenadeeda ka mid ah oo laylatulqadri la yidhaahdo. markaasuu ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yihi wamaa adraaka maa laylatu lqadr, yacni tacdiiman lisha'niha. miyaad garanaysaan laylatulqadrigu wuxuu yahay? miyaad war u haysaan? horta ma garanaysaan qiimihiisa? wamaa adraaka, maxaa ku ogeysiyey nebi maxamedow maa laylatulqadr, laylatulqadrigu wuxuu yahay. laylatulqadriga ilaahay baa inoo sheegaya, wuxuu leeyahay laylatulqadri khayrun min 1000 shahr. laylatulqadrigu waa habeen ka fadli badan 1000 bilood ka fadli badan wey. marka fursadaasi in qof caqli leh iska dayaca ma aha. wuxuu kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay yani habeenkaasi inuu yahay habeen barakaysan. innaa anzalnaahu fii laylati mubaaraka innaa kunna mundiriin. ilahay wuxuu yihi qur-aankan waxaan soo dejinay habeen barakaysan. habeen barakaysan buu ilahay ku tilmaamay. tilmaamihiis waxaa ka mid a in qur-aanka dhexdiisa habeenkaas uu soo degay, habeenkaas ilahay inuu qur-aanka soo dejiyey. tilmaamaha habeenkaas waxaa ka mid a inuu yahay habeen barakaysan oo ilaahay uu barakeeyey, oo qofkii ilaahay khayr la damcana ilaahay uu waafajinayo. qofkana isaga laga rabo dadaalkeeda inuu la yimaado siduu habeenkaas u heli lahaa. wuxuu kaloo ilaahay subxaana wa tacala noo sheegay yani khasaa'ista habeenkaas uu leeyahay waxaa ka mid ah tanazalu lmalaa'ikatu wاlruuxu fiiha. waxaa soo degaya oo ma aragtay yani habeenkaasi malaa'igtii iyo malaku jibriil ayaa soo degaya. malaa'igtana waxay usoo degtaa waxa khayrka ah, meesha maaragtay masalan qur-aanka lagu akrinayo, meesha cilmiga lagu baranayo, yani khayr iyo meel lagu cibaadaysanayo markay arkaan way soo degaan, khayrkay usoo degaan, raxmad iyo wanaag bayna la soo degaan habeenkaas. marka malaa'ig fara badan baa soo degta buu yidhi ilaahi subxana wa tacaala. malaku jibriilna waa soo degaa. tanazalu lmalaa'ikatu wاlruuxu fiiha biidni rabbihim, idanka rabbigood bayna kusoo degaan. wuxuu kaloo ilaahi subxaana wa tacaala noo sheegay habeenkan inuu yahay habeen yani nabadgeliyo, habeen nabadgelyo inuu yahay. yani salaamun hiya xataa maطlaci اlfajr, waa habeen degan oo nabadgelyo ah. nabadgelyadaasi waxaa la yidhi dadku waxay ka nabadgelayaan shartii shayطaanka iyo dhibtiisi bay ka nabadgelayaan. waxaa kaloo la yidhi habeenkaasi waa habeen nabadgelyo ilaahay subxaana wa tacaala dad fara badan ayuu cadaabkiisa ka xoreynaya. habeenkaasi dad fara badan ayuu cadaabkiisa ka badbaadinaya uuna ka xoreynaya. marka runtii yani habeen aad cibaado usoo jeeday oo aad cadaabkii ilaahay inaad kaga xorowdo sabab kugu noqday, ma mudna in la dayaco ama laga seexdo ama runtii la iloobo. nasiib darada dadka haysata waxay tahay waxay un fahmaan keliya dhaldhalaalka adduunka unbay fahmaan, aakhirase macno u samayn mayso. sida ilaahay dhaqankaasina dhaqanka gaalada weeyo. ilahay wuxuu yihi yaclamuuna ظaahira min alxayaati اdunya wahum can اlaakhirati hum gaafiluun. yani dhaldhalaalkan adduunka iyo waxa u muuqda keliya iyo doolaraadkaas iyo qurquruxdaas ayuunbay wax walbaba ka dhiganayaan, taasay weyneynayaan oo qiimeynayaan. aakhirase way moog yihiin buu yidhi. aakhiro oo yani aada u dhow, oo hadday tagaan waxa ku anfacaya iimaan iyo camal saalix ahna way ilowsan yihiin oo umana camal falayaan, umana dadaalayaan. marka walaalayaal habeenkaasu habeenka ilaahay dad fara badan u badbaadinayo wey. ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu na badbaadiyo oo cadaabkiisa naga xoreeyo,
innaga iyo waalidiinteeni intaan jecelnahayba. marka fursadaas yaan la dayacin oo ha laga faa'iidaysto walaalayaal. wajazaakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.